يا قدوميها جاليدا عبد القادر نونة عباس علي iyo dhammaan Soomaalidan halka soo timid intii juhdi gelisay ay kamid yihiin Cabduqaadir iyo Jumbur iyo dad badan oo mataqaan macalinka iyo dad badan oo asxaaba waxaan horta aad ugu mahadcelinayaa Cabdiqani Kamban maxalla Cabdirashiid Barre محدين أو سفة عن طاطاتي تاريخ يرى الصومالية إنك استوقت لنا أونلاين وحنو شيء يا ضد كان الصومالية ده ليش نسويه ضد كير حديقتن عالم كان بلوجا حديقتن إحنا كجسورنا شنطة شرحات ما فقلت أنت هاي أصلا صوماليا شنبي هاي صدح وحر بين نقطتين لحيلاتك يجون قبلدي وقياقات حرنمرة كودي لوليو كوفرتي الصومالية أما السود الصومالية قاطي وأنا مدوبين صدق حسبي والله شيء وحنا قامين ياك رجعوا السكرة هذا قراد علي محمد إبراهيم عقال وقوية وحنا اللي شنطس صدق تبنك الصومالي أسوأ اللي هذا أصلا بآية لكن عبد الله عيسى محمود وأصنعها أسوأ هذا عبد الله عثمان مدحينو غوري الصوماليا dadka leegada hormuudka ka ahaayeen ayagana oo kullamaan saddexdaas oo marna aan la ilaawi karin dadkan dhalinyarada ee aadka u yar waxaan u sheegayaa in Soomaaliya ay gumaysta qaybiyay saddex kamid ah ee xor noqotay labana la raadinayay dagaalkii 77 waxaan damacnay Djibouti 27 Juun 77 xornimo qaadatay laakiin nasiib darro lama midoobin لكن أنا وحنا كوسا كرني يضع أبياشن إليه شنوية صدق مقلنا وهذيننا صدق مقل ميت كميرة ويحرودي فرانسيسكا كوميستان الصومالي كلاكوي وشن ميت واشكو ديني أدونكو حاجري واجس سوشياليستي كومونيستي سوشياليستوها واسا الناتو وحا أنغو رين ربنا كوفر شنت الصومالي قيب كميرة صومالي قلبي نجيه اللي كومستين نقيبي أو روسيا أو مركا وارسا أو يوكرين تنادوا والله إنه يكون جرتي ومركا السكولي يجري ميدا وسوفيتي باورناها أيام نلاد قالي دبنا الناس الشيء رياضة إننا مثلا هالكاس بربرية لكن يوحنا إلهي كبرية مستقبل كصوص على كان دلي يكون واعي أنتي نلانتير هنا أركان شنط سوماليا ضميرة هذا أمهات سنتين سوماليا هندولا ما يشعب عن يركب فرانك أقرأ الله والله ما تداري شعب عن شعب أصلا كان dadka ku jirtaa Soomaaliya politics siyaasadda lagu fashilay saduuqda kala dhexgalay safiyasad xelaysu dilay Soomaaliya politics siyaasadda lagu fashilay saduuqda kala dhexgalay safiyasad xelaysu dilay duniga dhammaan safiya sooyaalka ismaana xaali duniga dhammaan safiya sooyaalka ismaana xaali aad iyo aad ayaa umahadsan tahay caawa baraka ma qodna hadda ayay noo bilaabatay nuuna aad iyo aad ayaa umahadsan tahay xamaasadda aad gelisay dadka waxaan rajeynayaa inay noqoto mataqaanaa waxtar leh oo lagu cibro qaato haddana waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonka Cabdiqani sidana dhowr ereyaa
أنا قاضي مقع جريدة بوت يتم إسرائيل الواحد كذا ضمان أمة الصومالية إسرائيل الواحد الدجن ملك السيكين هذين وحن الله إنه هنبريو سلو عباس على ولدي شيء دنيا رجالين الصومالية إسرائيل وحكى الله استحسان أي صومالية في الإسلام ولا ليال وحسهلا معها صومالي وحي صومرتين نسيب وناك ضد وايلدينا oo hadda ilaahay u ofsaday ayaa u istaagitaanka waxay ka dhidhiyeen in la gumaysto Soomaaliya waa wadanka kaliya ee aan gumaysi sax ka dhicin waana wadanka kaliya ee dagaal 21 sano kula jiray inuu mataqaana dhulkiisa ka saaro Axmed Guri hadii laga bilaabo Sayid Maxamed Cabdullaahi hadii lagu xijiyo Xaawataako dhagax tuur iyo xalane wada ogtiin taariikhday soo mareen waa dad annagana la mid ah sharaf bay noo tahay maanta 63 sano kadib dhiigii u daatay in wadankeena laga xoreeyo gumaysigii ku soo duulay ee Ingiriiska iyo Talyaaniga ahaa alxamdulillah waxaan leenahay dadkeena ku dhintay horta ilaahay ha u naxariisto waxa kaloo marka annaga waajib nagu ah inaan dareensiino jiilka yaryar walow si af Soomaaliga qaarkood ku dhib yahay inay fahmaan calanka Soomaaliyeed ee buluuga inuu Soomaaliya si sahal ku imaan inaan xorriyadda lagu ciyaarin waxa kaliya ee namideeya ee dhammaan aan wada ognahay waa magaca Soomaaliyeed qof kasta jinsi kasta ama qabiil kasta ku yimaado marka ugu dambaysa wuxuu ku laabanayaa yaa tahay Soomaaliyan anigana sharaf bay ii tahay inaan maanta aan ka soo qayb galo ama aan ka mid noqdo dadkii xorriyadda maanta magaalada Soomaaliya ugu dabaaldegay waxaan nagala soo qayb galay bedhawdarkii magaalada waxaan nagala soo qayb galay qiimayntii raadkii nasiib wanaag wadanka waa samar dadkeena Soomaaliyeed waxay u qaateen in habeenkii cashada iyo xafladda inay tahay laakiin annaga imaashiina noo muhiimsan markii ay inoo yimaadeen waan macsalaameyna way naga tageen waxaa hadda noo soo socda safaaraddii Soomaaliya oo ka soo socda Belgium oo 3 qofood ah waxaan rajaynaynaa inay yimaadaan markaas ka bacdina ayagii wixii kaga aadan sheegayaan waxaan rabnaa midnimada inaan adkeyno midnimada markaan leenahay walaalayaal waxyaabaha social media ku jira Soomaalinimo ma ah in la caayo qof madaxda ah in la caayo diin ama in la caayo qof shakhsi ah waa ceeb Soomaaliya waxaa lagu yaqaanay jid kasta ay marayso inay istaageerto waana nahay magaaladan Isoola muddaan joognay iyo agagaarkeeda waxa kaliya naga dhaxeeyo waxa way ah inaan iska wada qayb qaadano ummadda horumarkeeda taas diyaar u nahay inaan dhamaanta ku midowno walaalayaal diyaar u nahay inaan ku wada midowno waa maasantii waxaan leeyahay idin rajaynayaa habeen wanaagsan oo xorriyadda ka hadlaysa dad badan oo madaxa nala fadhiya gabdho badan nala jooga qof kasta waxaan rabnaa inaan waqtigiisa siino sida aad noo soo sharafteen ayaan annagana mataqaanaa idinkaga mahad celinaynaa Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya waxay leedahay dawlad madax bannaan waxay leedahay madaxweyne waxay leedahay baarlamaan waxay leedahay ra'iisul wasaare walaalayaal inta inaan ka qayb qaadano muhiim noo tahay waxaan wadankeena ama horan aan ka gadnaa inaan nahay dad dhaqan fiican oo wanaagsan waana waxa kaliya ee aan ku midaysanahay waxaan leenahay aan si adkayno waxaan leenahay horumarka ee wadankana ka qayb qaadano waa maasantii salaamu calaykum caawa halkan looma kala yareysan dhexgal ayaan samaysan doonaa intii mataqaanaa inkastoo jeclaan lahayd in dadkii lagu casuumay nala joogaan way noo imaan doonaan hadda waxaan kusoo dhaweynayaa Cabdirashiid Bare oo asigana dhowr erey halkan ka dhihi doona kusoo dhawo Cabdirashiid Oh,
meel ku dhegsan geedka meel ku dhegsan Somalida quality siyaasadda lagu fashilay saruguna ka dhaxlay safiya safka la isu dilay Somalida quality siyaasadda lagu fashilay saruguna ka dhaxlay السلام عليكم halkan ka salaamaya ummadda Soomaaliyeed inta meesha isugu imaatay anoo shucuurteeda ku muujinayo kowda luuliyo iyo ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda haddii wixii aan qaldana laga raali noqdo maadaama ku cusubaha sheekada marka waxaan rabaa inaan magaca Soomaaliyeed inta maqalkii muuqaalkii taqaan midda kale waxaan rabaa jaalida ummadda Soomaaliyeed inaan salaamo kadibna jaalida Soomaaliyeed in aan hal iyo laba baraam ka xuso qofkii macna aan ka tagana inaan qalbiga ka salaamo bacdeen hadda baraam keen bilaabaya ma aylaadega homa hanka wax laga yira ma aylaadega homa hanka wax laga yira magaca Soomaaliyeed baan salaamaya magaca Soomaaliyeed aan salaamaya jaalida Soomaaliyeed aan sifeynaya jaalida Soomaaliyeed aan sifeynaya oo qaybta naadar la yanimaana la nuuxi karin oo qaybta naadar la yanimaana la nuuxi karin jaaliyadu qabiil maahin qarahanay xambaarsan tahay jaaliyadu qabiil maahin qarahanay xambaarsan tahay oo guddoomiyiin ugu horeeyaan horumarinaya Dr. Cabdiqaadir Cali Nuuna wiilkii cilmiga lahaa Dr. Cabdiqaadir Cali Nuuna wiilkii cilmiga lahaa gudoomiyaha labaadna wiiligay ilmaha Maxamed Ibraahim Jumbuur Welfogeyayaan Maxamed Ibraahim Jumbuur Welfogeyayaan Cabdiqaadir Mansuur ya wiilkii xisaaba lahaa Nuur Jaamac Umar Maxamed nimankii murtida lahaa Nuur Jaamac Umar Maxamed nimankii murtida lahaa Cabdiqaadir Siidow macallin Cabdirasaaq Siidow na wiilkay ka seexamaa macallin Cabdirasaaq Siidow na wiilkay ka seexamaa Cabdifataax kama maadan midigtow ka taagayaay Cabdifataax kama maadan midigtow ka taagayaay Cabdiqaadir Weyrax weeye wiilana weere kaare Cabdiqaadir Weyrax weeye wiilana weere kaare jaaliyadu qabiil maahin qarahanay xambaarsan tahay jaaliyadu qabiil maahin qarahanay xambaarsan tahay oo maskiintay quudiyaan meel kastay tagaan maskiintay quudiyaan meel kastay tagaan ilaa iyaka mankay soo kormeerayaan ilaa iyaka mankay soo kormeerayaan waalidka ubadkood la qaatay u soo celshaan waalidka ubadkood la qaatay u soo celshaan guri haddaa doontay ka ku geynayaan guri haddaa doontay ka ku geynayaan mas-uuliyiin weeyagoo maamul looga haray mas-uuliyiin weeyagoo maamul looga haray jaaliyadu ma maqsuuda masnaha waa macelinayaan asalaamu calaykum
السلامة ميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرحية بدن يميل بدن وأدونك كميت أيام أنت لو قد بالدقايا اللي إحنا يصدق جورده كسورك تحرنا مدى الصومالي سيدا وده أجنهي أو ياشين أبياشين طب بدن وأن جعلنا هي نفتو دي جود واحد أهوران يمال كود حرنا مدى ما أنت أنا هاي السنة معها عيار إن شاء الله أنا جو إنك استوقف بدأ يمكروفن كل يجي في عيني هذا وحن ربا إن أن أريو كوبن وأن يسوع جدي أو إن أن أوجد منه جيل كصوماليات المستقبل كسوكراي ما أنت صومالي واحد لا دولة هلا هات واحد لا عدو بدل أرجع مدحوينها وها صومالي هشيس جندنا لا هشيس تاسمعنا يدوح وياي إن أن ملو بو أن جوجنو أو أن كنا الله أن قبلنا هشيسين تحدينا ما أنت هلك واحد يسوون مت أنه ولا لا وده السمن قبل يويل البله إن أن موجنا شعورتنا إن أن تاجر سنة إرجاس ومدعوينين وير أو صومالي هشيس جندنا له هشيس وإن هشيس كتحدينا قبلنا مستقبل كمدة الصومالية الواحد وكحرية هاي عروت يرير جيل كيرير ما أنت هرت الفردية سيدي أن أبر بارين لهين أن أبر لهين لكن كدينتين الإسلام يوحول بو وناك ومدة الصوماليات كده هي تاريخ بدل أيا لقى قري ما أنت متجوجنو محل سكودي لي محل على كمياش الله دقي ما أنت وحنا جوجنا سيدا أنا على كبارك وجف العين إن ودعينه فرحنا ومدة الدون كنا أن تصنع إن على كبلوجا ولد تاجية وهذا ومد حسوسته على كاس بلوجا ما أنت ودعو جريتان كصومالي يجري معي تاسنا واحد وجميس والربا إنه على كصوماليات لو بدلوا على ما يريا وأقولنا فيدراليزم لكن فيدراليزم هو إنه دولة الدحاء ماملك مدعوينا حسن الشيخ رئيس الوزراء حمزة هوسي ماذا يجا تلك فرنتا يجا ينتلك بحدا سيدا يكون إيمان دونتو إله بأو وإن ودك إنه أدعينه وإن ودك إنه حد يقر أن كدافعنا مسرح كست إيميل كست جوب كست لسوي ماذا وإن موجن منمو سوماليا نولادا سوماليا هنولاتو وما سنتي شرفت ما أنت أهلك فردان وأشعرتينا ولقب سنة جالية الصومالية يكونوا أوهايو كولومبوس مينيابوليس لندن باريس وما أنت ميرو بلوجد بلدقاي على كان سنة جورد اللي إحنا يسدحات ومدة الصومالية وحن يدير جينا حفلة وناكسن إن أهلك أي كترة ولا تنمو مركا أن أهلك كبحنا إن أن دب وجشة كأنه ذكي أن جريها وجشة تجني الله ما أنت واحد تيجي حفلة دي اللي إحنا يسدح جورد الصومالية وحنا أهيد حفلة في عن وإن أن ذات أوجد من ذاتك كله إن شاء الله بوك عن ديسمبر كقري صوماليا أي إذا صوبني دونا بوك عشان العقل إذا كمرة نول بقرات كان كنونو إيمان دونا وأنا أخرسون دونا واحد قروح ده بدله أي صوماليا لا ده واحد لوجود ولا واتقن كفرفرن مرتشارك إسجعلايسيك إسكالمايسيك إسقربتاك واتقن كصوماليات وواحد الربمات اللي بريو إن أهل كين الصومالية لدين درنسيو إن أيهين ضد إصدقائي ضد وحوش ضد أو حجرني عدو أيان ود حجرة عدو بينو مرنبا ما أقول ولا تنمدين يود الجيركين وإن ود الجيركين أبكينه وما سنتي حفلة دوناس Hai ma she an ma lo ha she
wadadii marisee واشقيني بسم الله الرحمن الرحيم dhalinyarada dhammaantiin waxaan ku soo hormay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caaway waxaanu u taagannahay kowda luuliyo oo xambaarsan xorriyaddii soomaaliya iyo midowgii waqooyi iyo koonfur kowda luuliyo intaas keliya maahan waxaan ku xasuusannaa dhammaan halgamayaashii soomaaliyeed oo ilaa taariikhda waxaa laga soo bilaabay axmed gurey intaan xasannahay amiir nuur sayid maxamed cabdulla xasan ilaa intii ka dambaysay oo soomaaliyeed oo ama u dhimatay ama u jadatay xorriyadda iyo inaan soomaaliya ay noqoto ummad adduunka la yaqaano xor ah baanu ku xusaynaa waana dabaaldeg mar raba inaan khudbadda ku dheeraado oo rag badan oo iga horreeya odayaal waxaan dhihilahaa yiri mar walba in carruurteenna ay ugu bartaan dhaqankii iyo inay waddanka ka yimaadeen ay dal leeyihiin calan leeyihiin leeyihiin taariikh bay ka tukanaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرتا هلكم ولا اسمه كود لولي أفكر كي عليك كلا هذا. إنكستو إن لا جد كلوا هذا صعب سيمون تاي مركوا إن لو صعب يعني. مركا قفكو هذا وهواي مركا إن عن الحسب danta ay u qosabto marka afkan maaga iyo maxaa tiri horta maaga horeeya halkan waxaan isugu imaanay kowda luuliyo dhammaan inta ka soo qayb gashay iyo inta qaabada lahayd horta halkan waa ka wada salaama waxaan dhihi lahaa hore loo yiri intaasaan uga baxay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ومالين
عندي مرسي والله مرسي أما لو أكشن ما عندي wax ka ogaadaan run ahaantii waa maalin aad u qiimo badan waxaan rabaa inaan marka u mahad celiyo dhammaan dadka meesha fadhiyo ay u horeyso saxaafadda gudoomiyaha jaaliyadda Cabdiqaadir Nuune ku-xigeenadiisa dhammaan dadka isboole iyo nawaaxigooda aad iyo aad u mahadsantihiin kasoo qayb gasheen iyo waqtiga aad geliseen iyo casuumaadda aad kasoo jawaabteen ee aad timadeen iyo waqtiga culus qiimaha badan ee aad leedihiin ee aad soo horteenna taasna waan kaga mahad celinayaa waxaan kaloo macnaha xusuus mudan run ahaantii caawa macnaha anu maan qorshaha iguma jirin maaragtay in aan meeshaan lasoo istaajinayo waxaan isdhahay dad maaragtay kaa madaxsanaa jooga laakiin nasiibaan u yeeshan aan soo istaaga halkan alxamdulilah laa idan marlabaad waxaa haddana xusuus mudan in macnaha dalkeeni uu maantay uu galayo xaalad oo isbedel ah oo macnaha nabad ku bedela colaad ah taasna waxaan leeyahay alxamdulilah waan soo dhaweynayaa 9 kilomitir iyo adee 150 200 camal ayaa hadda macnaha wadanka nabad ka ah alxamdulilah waxaan kaloo inii xasuusinayaa inaan macnaha 2 weeks laba isbuuc ka hor inaan Soomaaliya aan ka imid oo aan soo arkay sida ay tahay Soomaaliya xaaladeeda dadka ku nool hamiga ay leeyihiin meesha ay hiigsanayaan intaasoo dhan waan soo arkay wallahi run ahaantii haddaynu naa qurbo joog laguma soo koobi karo ma hadda laynay haayo haddii aad tagto dalka ayaa ogaanaysaa in qurbo joog ay qiimo leedahay
laakiin halkaan markaan wada fadhino waxaad moodaa in anaga qiimo saas ana ugu fadhin dalka run ahaantii dalka meesha uu joogo dadka gaarsiiyey waa qurbo joog marka waxaan kaloo rabay inaan ku daro hadal badan hanuun buuxshaa la yiri waxaan rabaa kale inaan ku daro dalka Soomaaliya maanta wuxuu joogaa iyo dadka Soomaaliya maalin xusuus mudan oo ah in macnaha ay badan tahay isfaham la'aanta hadan lagu soo biirtay ama madax ha ahaato ama shacab ha ahaato ama gobol ha ahaato ama maartay caasimad ha ahaato waxaad moodaa wax yar in macnaha kasto ay taasna waxaan rabnaa in Ilaahay idinkiis oo Ilaahay aan u baryaynaa in Ilaahay masaalix khayr qabto oo dalka dhex dhigo dadka Ilaahay amurtii Ilaahay waxaan ka codsanaynaa ama baryaynaa intaba in dalka oo ka baxo dhibaatada oo ku jiro oo uu galo barwaaqo iyo nabad iyo nolol iyo bashbash iyo barwaaqo aad ayaa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم صومالي وين مقعدة وكيس سعايا وغاني سيادي وعاد مقفاني السلام عليكم السلام عليكم مالتي سياسة لغو فاشلي سلوكنا كلا نحقلي صفية صفقة ليس ودلي صومالي دا مالتي سياسة لغو فاشلي سلوكنا كلا نحقلي صفية صفقة ليس ودلي دوني دا لبك لسجرا سويال كيس كما نحانين دوني دا لبك لسجرا سويال كيس كما نحانين تبوتاي سيدان أغين سأيا سيد إيو جر إيو سان إيو هيلب إيغو يالبا غلاف كيني سحدين سيدوسك ورد الشيء إلا يسدنا من ميمو إلا يسوما دامان كوتو أفاقو إلينا السورو سكيا إلينا الدارو شبكة سيدنا زالان أكيد سبيقي قلبك سكيا ومناك دوما كنا ساعدوهم وغشا سمنو في الشو صحبا هذو أبل قديه سيداهانو لسابنيغا أهم بدي إيسي سيئي سبحمو وليغارا سبحمو وليغارا ولا أركنا ساعدوهم وغشا سمنو في الشو صحبا هذو أبل قديه سيداهانو لسابنيغا أهم بدي إيسي سيئي سبحمو وليغارا سبحمو وليغارا magaca Soomaaliyada intuu ifka saaran yahay makala socmayno makala saarsaarani allaha sadiran bari سدي على فوق بوتا أي كسيح نبت سياسة حمية حمدين تاريخ دي صوماليا كسمة بحنو ماشي أيوة قبل magaca Soomaaliyada intuu ifka saaran yahay makala socmayno makala saarsaarani allaha sadiran bari aad iyo aad ayaan horta macnaha waxaan rabaa inuu mahadceliyo Rabbi subxaanahu wa tacaala oo noo oggolaaday inaan maanta soo gaarno munaasabadan qaaliga ah maanta taagadan macno noo astay inaan ku wada kulanno alxamdulilah xamdan kasiiran aan leeyahay midda labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
sugto siinkaha waxa loogu dhacay inaan dhibka sama baxne waa la arkaysan wado ku seexo inaan ku hay ku seexo inaan ku hay siduusagu hore u sheegay ilaysidigaama mayno ilaysumadaaman kurto afkaagu ilayna sugo sokeeya ilayna gaaro shabakasimaasaaran majilisabigiya qalbiga sokeeyo nagaa gudoomaa yar baa laga hadlay taariikhda waan dhegeysanayay wax yar baa laga hadlay odayga xagga fadhiya siduusagu hore u sheegay ilaysidigaama mayno ilaysumadaaman kurto afkaagu ilayna sugo sokeeya ilayna gaaro waxa weeye waa SYL markaasi waa ayo SYL waxa weeyaan waa saddex iyo toban dhalinyaro ah oo arrintan soo shaqaysa maanta haddaba SYL SNL, USB, iyo LUF. Markaas total marka la isku dayo waxa weeyaan waa afar waxaan u sheegay marka dhalinyarada waa maalin murugiyo makeeki hare waa maalin ilaahay maasheye amalo hashee amaan deeqe marise waa maalin murugiyo makeeki hare waa maalin ilaahay maasheye amalo hashee amaan deeqe marise Mahmudu andari dola marise amalo hashee amaan deeqe dhaxaan murugiyo harraad mudane maantay curatoy mataanayse aan maalo hasheen amaan deeqe andhadi marise dhaxaan murugiyo harraad mudane soomaalida hodan iyo safaaradda walaalayaal saad ogtiin waddanka soomaaliyeed muddo badan ayuu wadda jira ahaa burburkii kadib safaaraddeena xoogaa awooddeedii way garaatay waxqabadkeedii alxamdulilah sanadadii ugu dambeeyey dowladdii laga bilaabo cabdullaahi yuusuf ilaa lagu keeno dowladda xasan sheekhaatan taagan dowladda soomaaliyeed waxay u istaagtay wadamada ugu muhiimsan ee waddanka soomaaliyeed xiriirka ula leeyahay bulshada soomaaliyeed ugu soo qaxday ugu badan tahay in safaaradoodii boorka laga jafo
safaaradda Brussel ee Benelux keliya ma u aha Brussel inay u tahay waxaa naga u tahay Benelux oo dhan iyo Yurub oo dhan dadka UK jooga hataa waxay u soo doontaan tasiiraadka u baahan yihiin sharaftaas annaga haddaan ajaariyadda dowladda hore iyo dowladda Belgium waxaan ku qasabnay in safaaraddeena la aqoonsado warqadda ka soo baxdana ay muhiim u tahay ummadda Soomaaliyeed baasaboorka Soomaaliyeed inaad ku qaadan karto waxaad u baahan tahay waxyaabo badan oo Soomaalida mataqaana iska sheeganaya laakiin aniga aan gudoomiye jaariyadda waxaan maalin kasto aan u diraa safaaradda dad Soomaaliyeed oo ku xaniban inay waddanka u helaan nolosha ama warqadda aqoonsiga isla markaana shaqaalaheeda waxay u ogolaadeen inay siiyaan waa sumcad weyn maxaa yeelay dowladda Soomaaliyeed caalamka Soomaaliya wuxuu ku taagan yahay safaaradda Soomaaliya cid geli karta haba yaraatee ma jirto waxaa noo yimid madaxdii aan sugaynay qameyntiga magaalada xukunta ayaa noo yimid aad iyo aad ugu faraxsannahay welcome meneer we hadden heel lang gewacht op u we weten wel dat u druk hebt maar dat is heel belangrijk we waarderen enorm op u en saa la socotaan jaaliyadda Soomaaliyeed cid kasta oo madaxa waddanka maamusha ayaa nagala dhaxay xiriirka nagala dhaxay maaha annaga inaan ama taqaan wax naloo yeeriyo annaga ayaa waxaan goynaa waxa lagu maamulayo waddanka waxaan leenahay cod waxaan leenahay sharaf aan ummadda Soomaaliyeed annagoo Netherlands ama Belgium ayaan waxaan madaxda waddanka magaalada u sheegnaa in sharafta Soomaaliyeed lagu xadgudbo qof Soomaaliyeed banaanka lama dhigi karo ilmaha lagama qaado karo haddii jirto waa ka daba tagnaa waa soo celinaa waxaasna waa midnimada Soomaaliya walaalayaal aniga 30 sano Soomaaliya u dambeysay laakiin magaceygii iyo afkeygii iyo Soomaaliga midna ma bedel waxaan saacadahayga ugu badan gelinaa ummadda Soomaaliyeed inay midowdo in la aqoonsado kan kaamka ku jira iyo kan guriga degan iyo kan soo socda imaan doona way soo ognaa anagoo dhan magaca Soomaaliga inaan difaacno oo caalamka ku difaacno way wax naga dhaxeeya waa sumcadda sharafta ummadda Soomaaliyeed kuma dheeraanayo oo khudbado badan oo soo socda waxaan hadda rabaa inaan ku soo dhaweeyo safaaradda oo aan rabaa inay maanta kooda luuliyo maanta maadaama ayaga ay noo matalayso dowladda Soomaaliyeed inay halka ku soo dhaweeyo jiifka protocolka ugaas ayaan ugu yeerayaa si uu mataqaanaa mudanaha maanta nala jooga uu ugu soo dhaweeyo maasantiin أجر إحسانات بدن الله كسيو تلمتنا قبر جود الله النوريو هذا بحث كان عاوة وحي نوته هنا سوق براروجينه شرفته إنه هرسيدين وياشين إيمان تان هيسنو تهينا إنان إلاشنو ونقود بينو جيلال كنا نقدم بيا سيدان يسك كقروح بدن أنو وريجينو dhibaatada ugu badan ee haddana haysto dhalinyarteena waxaa ka mid ah waa inaan barnaa ilaalinta iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed la dagaalanka qabyaaladda sida daran u saameeyay ummadeena Soomaaliya walaalayaal anagoo halkan hadalka inaan idinku dheereeyo maaha maadaama aan soo daahnay anagana safar dheer aan soo galnay waxaan rajaynayaa inaad noo cudur daari doontaan fadlan caawa oo kale aanu isugu dardaaranno sidaan ula shaqayn lahayn madaxdeena hay-adaheena dawliga ah ee sidoo kalena caawa waa inaan isugu dardaaranaa sidii aan garab istaag weyn u muujin lahayn madaxdeena ugu horeeya madaxweynaheena Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gelin weyn aan siinaa ahmiyadda uu koowaad iyo labaad iyo saddexaad uu siiyay sidii Soomaaliya amni waaro u heli lahayd dhanka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya
fadhigeedu yahay Brussels waxaa idinla wadaagaynaa inay naga go'an tahay in aan si hufan ugu adeegno muwaadiniinta Soomaaliyeed ilaalinana sharafta iyo haybadda ummadda Soomaaliyeed waxaana si gaar ah idinkaga codsanaynaa inaan nagu garab gashaan hawshaas fulinteeda waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa anigoo ku hadlaya magaca safaaradda magaca safiirka iyo guud ahaan tiimka safaaradda midnimo Soomaaliya ha noolaato waa mahadsan tahay qasuulka guud ee safaaradda Brussels aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad nagala soo qayb gasho waana kaaga cudurdaaraynaa maxaa yeelay Brussels iyo Zwolle waxaa u dhexeeya waqti dheer walaalayaal adinkaa martini loo yahay marka haddii marti la yahayna waxaa waaye inaan soo dhaweyno waaye waana ku mahadsan yihiin safaaraddana waa dowladdii oo ah noo soo dhawaatay marka marar badan bay noo imaan doonaan haddii laartu nagu simo caawana waxaa idinka sugaynaa dadkiinaan jaaliyadda ah inaad wacdar ka muujisaan meesha waa mahadsantiin Cabaas